maanta oo ay taariikhdu tahay 21 bisha labaad 2024 waa maalin taariikhi ah idinka oo ka duulaya mas'uuliyadda qaran ee idin saaran duruufaha dalkeenu marayo iyo dareenka shacabkeena ayaad gaadheen go'aan masiiriya oo dhaxalgal ah go'aan Soomaaliya u jeexaya wada cusub oo aan horay u suurtoobin go'aan Soomaaliya ka saaraya madinimadii iyo walaal la'aantii iyo tol la'aantii intaba go'aan Soomaaliya u sameynaya saaxiib iyo walaal dhab ah oo ay caalamka ku yeelato waxaad meel mariseen heshiis khuseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhaxeeya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda walaalaha nahay ee Turkiga heshiiskan wuxuu soo afjarayaa in aan badeena iyo waxa ku jiraba uga baqno argagixiso burcadbadeed kaluumaysi sharci darro ah sun lagu shubo iyo xadgudub iyo halis kaga timaada dibadda intaba heshiiskani wuxuu suurto gelinayaa dhisaya tababaraya isla markaana qalabaynaya ciidankeena badda si ay ula wareegaan difaaca badeen heshiiskani wuxuu dararinayaa ama kordhinayaa wax soo saarka badda iyo dhaqaalaha buluuga ah waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa Jamhuuriyadda Turkiga ee walaalaha nahay oo shalay markii aan tol la'aanta ahayn ee ay abaartu dalkeena ay iyo dadkeenaba ay la daaladacayeen aad ogtihiin sanadihii 2011 ilaa 2012 inoo soo gurmaday oo Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga oo markaa ra'iisul wasaaraha iyo xaaskiisii iyo in fara badan oo kamida ganacsatada Turkiga iyo dadka Turkigaba inay wadankeena oo aan cidna ku soo dhiiran karin xilligaas inay yimaadeen taas oo runtii dib noolayn ku sameysay dadkeena gargaar fara badan ay ku heleen madaxdii kale caalamkuna ay ku soo dhiiratay oo wadankeena ay yimaadeen oo la dhihi karo waxay hormuud u ahayd talaabadaas xataa inaan ka baxno ku meel gaarkii maantana markii ay dalkeena ay khatar soo wajahday haddana waa kuwan ayagii oo walaalaha oo runtii leh waa idin garab istaagayna inana soo garab istaagay marka haday shalay ay si bani aadamnimo leh iyo humanitariankii inaga baahida aan u qabnay ay inaga kaalmeeyeen inuu soo garab istaageen dunidii ina halmaantay inaga tagtayna ay soo bareen Soomaaliya oo iyagu ay yimaadeen maanta markii aan haddana dalkeena u halis galayna waa iyagan in garab taagan marka waxaan leenahay waxa tihiin walaalo dhaba oo la isku haleyn karo aad iyo aad baan u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna waligood ma halmaami doonaan inay idinka mahad celiyaan wayna idin abaalgudi doonaan aad iyo aad mahadsantihiin assalaamu calaykum.